waa hubaal gabdhahan qofkii arka waxa uu maleeyaa inay uur wada leeyihiin labadooduba ha degdegin anigaba sidaas ayaan u maleynayay waxa ay u yimaadeen kaamiro ayagoo markaasi caloosha ay u buuxdo balse maxaa ka dambeyn doono waxa ka dambeyn doono ay la fiirin doontaan insha Allah gabdhahan caloosha uur uguma jiro waxa ugu jira maxaan ku dhahay wax la buufin hadaad u taqaanin magaca buufin magac kale uma hayo Soomaaliga buufin baa lagu dhahaa waa kaas way bajinayaan soo ma jeedaan gabadhan ayadana waxay wadataa cirbad yar way ku taabanaysaa way bajinayaan ilaa baa idinku dhaariyay markii ugu horeysay aad arkayseen soo isma dhaheynina gabdhahan uur ay leeyihiin aniga mar walba waxyaabaha la yaab kale ayaa idin la wadaagaa degdeganina tartiib fiidiyoga dhamaysta ilaah baa idinku dhaariyay inta maxaan ku dhahay wax caloosha soo gashato kaamirana u timaadid yaa sawira beena oo adoo uur leh ana horta waxaan ka shakiyay fiidiyogan marka arkay commentiga oo dhan TikTok dadku dhaw xilay maxay tahay dhabarka jabsan waxay tahay dad uur leh arki jirdey culiga toortale oo waxa kale isagoo caloosha ku jira tuurta yeeshay so aniga waa la yaabay 100% markii hore aan fiidiyogii ugu horeeyay arkay horta waxaan u maleynayay waxaan gabdho oo saaxiibo uur leh oo sawirad xasuusa galaayo laakiin markay sida u jeesteen baan shakiyay si fiican ba u fiiriyay profile-kan galay ugu dambeyn waxaan arkay in uurka uu been yahay oo wax igu sawir ay tahay so waxyaabo faniya balse qofkii koow arkaa uu la yaabayo balse waa iska fani gabdhuhu waxay sameynayaan waxa laga yaabaa festival markay yimaadeen inay sawir u yimaadeen kadibna dee qofka cameramanka ama asxaab baa la sheeko lagu keeno kadibna ay dhahaan dee anagana kaalay laakiin wax la yaab leh in oo markaasi dharkii oo uurka ay wataan oo loogu talagalay soo ma ogaaday markii hore ayagu libis ay u soo qaateen iyo markii horeba haday ugu soo talagaleen marka waxaan leeyahay gabdhahan haday horta markii hore caruur u joogan waxaan leeyahay horta caruurtan Ilaahay idin daayo hadaynan caruur u joogin oo ay gabdho yihiin waxaan leeyahay uurka saasateen isagoo xalaal oo run Ilaahay idin keeno faanti so ani wala yaa 100% waxaan ku iraadaa igu sawir uur ah waa markii ugu horeysay aan arkaayo de hadana wax la yaaba qof intuu soo libistay dharkii libiska soo xirtay kadibna uur beena isku soo yeelay de hore waan u aragnay ama markii caruurnimadeena ciyaar jirnay in gurigeena dhexdiisa caloosh wax lagu gashan jiray fawdo de waa iska caadi laakiin labaad ku dhaarinta libisataan ay wax marsataan yaa oo calooshan wax beena gashataan ma tagi lahaydeen meel kaamiro oo igu sawir beena ma sameyn lahaydeen ilaaba idinku dhaariya wallahi funny oo waxa waaye yani waxyaabo funny oo waxa waaye u baahan yani in laga fikiro so libiskeegi iyo wixii dhimo waxa isugu soo qasaariya uurkan beenta anyways waxaan leeyahay qof walba si uu u fikiraa qof walbana waxba la fudud qof walbana waxba la culus waxaan leeyahay walaaladey gabdhahan aqoon oo ma lihi laakiin la yaabkan ku soo qaatay aniga wax walba la yaabo waa idin la wadaagaa so waxaan leeyahay saa idin sheegay waxa ku dhahay igu sawiro waa markii ugu horeysay idin kureyla daawada waxa ku dhahay markii ugu horeysay sidoo kale aad tihiin ii sheegay hadaadan ahaynina oo horena waa aragteen dhanka commentiga igula soo wadaaga waan mahadsantihiin